السلام عليكم. magacaygu محمد موليد. fadlan haddaad ku cusubto youtube channelka subscribe sar si aad muuqaalada dambe noola socotid daawasho wacan. Beriyahan waxaa taagnaa muran ah markuu madaxweynaha Turkiga uu sheegay mutxafka lagu magacaabo Hagia Sophia inuu bedeli doono masjid. murankaas oo ay ka cadhoodeen kristanka badankoodii oo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo uu sheegay in aanay Turkigu u bedelin mutxafka masaajid xagga Greegu iyaguna ka cadhoodeen. ninka haysta kaniisadda Orthodox ee dalka Ruushkana uu ku tilmaamay in haddii Erdogan uu bedelo mutxafka masaajid ay kristan badan ka cadhoon doonaan ee muslimiinta nici doonaan. Christians around the world, and Hagia Sophia, which due to its sacredness is a vital center where East is embraced with the West, will fracture these two worlds. midda kale haddii masaajid loo bedelo mutxafka muslimiinta kaliya lahaan doonaan hadda laakiin ay muslimiinta kristanka u dhaxay mutxafkaas. haddaba maxay tahay taariikhdiisa Hagia Sophia? Hagia Sophia waxaa dhisay boqorka Byzantine ee Justinian lagu magacaabo jiray 537 ka hor dhalashadii Nabi Maxamed. dowladda Byzantine oo waqtiga ka talin jirtay magaalada Istanbul lagu magacaabo ilaa laga soo gaaro 1453 markii sultaankii Cusmaaniyiinta Maxamed Faatix lagu magacaabay uu furtay Istanbul. Hagia Sophia kaniisada ahayd waqtigaas uu bedelay masaajid. muddadaas masaajid baa hadii laga soo gaaro 1935 markii dowladda Cusmaaniyiinta dhacay Mustafa Kemal Atatürk ninkii lagu magacaabay Turkiga qabsaday ayuu ka bedelay masaajid oo mutxaf ka dhigay si mutxaf hadday noqoto muslimiinta kristanka way ka dhaxan saacid walba u gelaysa laakiin masaajid hadda ahaato dadka muslimiinta kaliya geliya ku soo tukanaya. marka mutxaf baa laga dhigay 1935 ilaa haddana mutxaf waa ilaa 2019 uu Erdogan kaga dhawaajiyay inuu masaajid ku celin doono. beriyahanna murankiisa soo tarayay. Hagia Sophia haddii masjid lagu celiyo waxay u gaar ahaan muslimiinta kaliya muslimiinta bas hadda ku tukanaysa cid kristanana ma geli doonto. waa sababta uga cadhaysan kristanka Turkigu wuxuu ku tilmaamay arrintan inay tahay arrin u taalo Turkiga oo aan u oolin dalalkan kale hadlay sida Ruushka iyo Mareykanka iyo Greek oo kaliya aan u oolin waa arrin Turkiga u taalo. maxkamad baan hadda socota in mutxafka masaajid loo bedelo maxkamad Turkiga dhexdiisa ku taalo bisha 12 insha Allah eegi doona wixii ka soo kordha haddii mutxafka lagu daayo haddii masaajid loo bedelo. qodobkeena labaad nin ganacsado Hindi oo Shankar lagu magacaabo ayaa maradu afka ku xidhnay ama maaskadiisa ka samaystay dahab taasoo lacagtiisu gaarayso $4,000. قرر صناعة كمامة. هذا الرجل اسمه شانكار كورهادي، كمامته صنعها من الذهب الخالص على ما يبدو، وتبلغ قيمتها $4,000 تقريبا. samaynta maaskigan waxay qaadatay 7 maalmood. Shankar wuxuu ku sheegay maaskigan inuu leeyahay dollar uu ka nafsan karo. soo kale markuu suuqa maraya ama ay dadku arkaan inay ku soo yaacaan qaarkood yiraahdaan selfie nala gal ama sawir nala gal qaarkoodna ay la yaabaan bay inta wadada istaagaan daawadaan. marka haddii aad nacday marada yarada afka ku xidhnaysay waad iska samaysan kartaa kan dahabka ka samaysan. muuqaalkana maanta intaas ku eegi fadlan haddaad channelka ku cusubtay subscribe sar lana wadaaga asxaabtaada. assalaamu calaykum.